السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله يوعد السلامي سيجارة مسج كان وحان رباينا وجهد له نندل يراه أو دولية سره وولالك للفؤاد كحدا ودنك جبوتي وحلقة بين السويديو محوي شيخ أحمد وهد ليا ويلكاس وحان وهد ليا من منطلق إنساني ومسلم reer Jabuuti waa dad walaalo ah waxa naga dhaxeeyay dhiig waxa naga dhaxeeyay islaamnimo waxa naga dhaxeeyay walaaltinimo waa inaan wixii goomoon iyo qofka dhibaataysan aan ka hadalo waa inaan qofka sharafta leh aan ka hadalo waa wadan walaalahaya waa dad walaalahaya waxa uu ku jiro walaal fuaad iyo message-ka uu soo duubay wallahi la yatahammal insan ووحسن قف حمل كرين كيف يعيش مسلم في حمام يا عقلاء سيداب قف مسلمه ونولان كرا مسقول كده أول شرفتي مسلمك كي نبي الله محمد يري صلى الله عليه وآله وسلم كعبض شرفت بضن والله مؤمنك كشرف بضن سيداب وحمل كرا قف بن آدم بلهن أن كجرنو أنا ورقي جبوت متجن لكن وحال إيشيء وحن أجهي إني كروشه وحن أجهي بلهن أن هذا كجرنو بشن لحاد يتطبات يسديدات إني تايب بله أغسي كلو بالله عليكم سداب قول قفك وجر كرا قول يرعو حران أما مسقول جذيه أو حران أوي إسلام نمدي أوي إنسانية نمدي أوي نحذنتي أوي شرفتي وبالتالي walaalkanina wuxuu ahaa walaal sharaf leh sida aan maqlay oo sharafta waxaan ka wada qof insaan dhalinyaro ah oo mutacallima waxaan rabaa message inaan u jeediyo madaxweynaha dawladda Jabuuti waa Ismaaciil Mudane madaxweyne Ismaaciil Umar Geel madaxweyne waxa tahay aabo madaxweyne waxa tahay zawj madaxweyne waxaad tahay madaxweyne waxaad dareemaysaa inta waxaan u leeyahay aabba caruurtiisa ka maqan ma jeceshaa inaad ilmahaaga ka maqnaato ma jeceshaa xaaskaaga inaad ka maqnaato madaxweyne bari waxaa la is xisaabin doonaa adduunku waa 2 maalmood laakiin aakhira la isku xisaabin doonaa waxaa laga yaabaa inay jiraan hay'ado ka hooseeyo oo xiritaankiisa ku shaqo laha laakiin waxaa tahay qofka mas'uulka wax laga weydiinayo qiyaamada marka la tago walaalkan waa dad dhalinyaro oo soo kacay wadankaaga waa ninkii lagu faani lahaa isagoo kale oo wadanka sharaftiisa iyo dharkiisa xambaarsanaa oo ramsi u ah waxaan ka codsanayaa si sharaf leh oo wanaagsan in walaalkaasi cadaalad u helo inaad xorriyadiisa loo celiyo in dhibaatada uu ku jira intaanba la gaadhin meel kale meesha iyo wadcigiisa wax laga qabto la bedelo shacabka reer Jabuuti waxaan leeyahay idinkuna wadankiina ilaaliya oo wadankiina insha Allah ta'ala iska burburinina wadanka dadka iska leh shacabka Soomaaliyeed oo baraha bulshada aan wax badan ku arkay oo laga yaabo inay dad badani siyaabo kala duwan u cabirayaan Jabuuti wadamada dariska noola mid ma ah waa dalkayagi waa dadkayagi wax badan baana walaaleeya shalay markaynu burburnay wax badan bay inoo qabteen dhabarkayna saareen mutamarkii carti iyo wixii ka soo bilaabmayba inkastoo oo la yiraahdo waxyaabahan shaakilka u waaweyn oo maanta Soomaalida nafta 4.5 la yiraahday nafteeda meesha lagu asixiyay haddana Jabuuti waajibkeedii bay gudatay annaga naftayadu dalka Soomaaliya ninkii taariikhda yaqaana ee 1974 halkaas sano oo madaxweynihii Soomaaliya siyaad uu wadanka dhanka ee Afrika dhan uu ururkeeda madax ka ahaa waxaan aqriyay 17 shir ama goobood oo uu keenay siday xorriyadda Jabuuti u qaadan lahayd marka shalay bisaa loogu ordaayay iyaguna inay ordaan waajib bay ku ahayd laakiin waxaan rabaa inaan iraahdo إنسانينimada iyo walaalnimada iyo islaamnimada iyo danqashada intuba waxay keenayaan in la ilaaliyo cadaaladda walaalkaana waxaan ka codsanayaa madaxweyne
inaad mar labaadan kaa codsan anigii inta kale badan ee kaa codsanaynaba in insaaniyad loo fiiriyo in walaalka muslimka ah laga soo saaro meeshu ku jiro cadaaladiisana uu helo aad baad u mahadsantihiin wabaaraka allahu fiikum wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh